Curaçao iyo Netherlands labadaba waxay ka qayb galeen koobka adduunka sidoo kalena waxay ka siman yihiin inay hoos tagaan hal boqortooyo. haddaba waa maxay sheekada aan la wada fahamsanayn ee halkan ku jirta? meeqa dal ayaase hoos tagtaa boqortooyada? waa maxay se heesta astaanta qaran ee Curaçao ee Soomaali badan ka fajicisay? I'm telling you twice, Curaçao came to show up. Let's go! boqortooyada Netherlands ama Holland waa nidaam siyaasadeed oo gaar ah waxayna ka kooban tahay 4 dal oo kala madax bannaan laakiin ku midaysan hal nidaam oo boqortooyo. boqortooyadu waxay u qaybsantaa 4 qaybood oo siman marka la eego sharciga boqortooyada Charter for the Kingdom. The Netherlands waa dalka ugu weyn waana midka saldhig u ah nidaamka oo idil wuxuuna dhacaa waqooyiga galbeed ee Yurub. saddexda dal ee kale ee boqortooyada hoostaga waxay dhacaan badda Caribbean-ka waana Aruba, Curaçao iyo Saint Martin oo dhaca qaybta koonfureed ee jasiiradda Saint Martin ee Caribbean-ka waxaana qaybta waqooyi ee jasiiradda ee dhacdo maamulaha Faransiiska. nidaamka maamul ee boqortooyada Netherlands wuxuu u kala baxaa 2 heer kuwaas oo kala ah arrimo u gaar ah dalalka iyo arrimo ay la gaar tahay boqortooyada. 4 dal mid kasta wuxuu leeyahay golo wasiiro, baarlamaan iyo dastuur u gaar ah waxayna si madax bannaan u maamushaan arrimahooda gudaha sida waxbarashada, caafimaadka, booliska deegaanka, canshuuraha iyo dhaqaalaha dawladda hoose. arrimo dhowr ah ayaa jira oo 4 dalba ka wada siman yihiin boqortooyaduna la gaar tahay sida go'aanada golaha wasiirada ee boqortooyada ee quseeya arrimaha dibadda, difaaca iyo arrimaha la xiriira muwaadinimada oo qof kasta oo u dhashay 4 dal wuxuu sitaa dhalashada iyo baasaboorka Dutch-ka. qof walba oo ka soo jeeda jasiiradaha Caribbean-ka ee boqortooyada Holland wuxuu u soo guuri karaa dalka Netherlands ee Yurub dhaca waxaana qof walba loo ogol yahay inuu ku noolaado, ka shaqeysto, waxna ka barto. golaha wasiirada ee boqortooyada waxaa hogaamiya ra'iisul wasaaraha Netherlands waxaana xubno ka ah golaha wasiirada dalka Netherlands iyo 3 wasiir oo ka socda jasiiradaha Caribbean-ka. boqortooyada Netherlands waxay adeegsataa nidaam maaliyadeed oo 2 waji leh kaasoo ku saleysan heerka ismaamul ee jasiirad kasta leedahay wax canshuur ahna kama qaado jasiiradaha Caribbean-ka. jasiiraduhu waxay dhaqaale ahaan ku tiirsan yihiin canshuuraha gudahooda ah iyo dalxiiska waxayna garab ka helaan boqortooyada marka ay masiibo dhacdo waxaana dhacda inay deen ka qaataan boqortooyada marka ay doonayaan inay fuliyaan mashaariic waaweyn. marka laga yimaado dadka wali niyadda ku haya dhibaatadii gumaysiga iyo adoonsiga haddana dad ayaa jira aaminsan in boqortooyadu tahay gabaad badbaado gaar ahaan marka masiibo timaado. boqorka ayaa ah madaxa ugu sareeya ee nidaamka boqortooyada tan iyo 2013kiina boqorka boqortooyadan waa William Alexander oo 59 jir ah. hooyadiisa ayaa xilka ku wareejisay waliba ayadoo nool si ay fursad u siiso jiilka cusub wuxuuna William Alexander noqday labkii ama ninkii ugu horeeyay ee boqortooyada hogaamiya tan iyo sanadkii 1890 oo intii u dhaxaysay 1890 ilaa 2013kii boqortooyada Netherlands waxaa iska dhaxlay 4 boqoradood oo dumar ah kuwaas oo waliba isku xiga. mar kale ayay boqortooyadu sugaysaa qof dumar ah oo hogaamiya maadaama boqorka haatan 3 caruur ee uu dhalay ay dhammaantooda gabdho yihiin waxaana dhaxal sugaha ah gabadhiisa curad ee lagu magacaabo Catharina Amalia. dalalka boqortooyada hoostaga waxay ku kala duwan yihiin lacagta ay isticmaalaan. dalka Netherlands wuxuu isticmaalaa lacagta midowga Yurub ee euro. jasiiradaha magacooda loo soo gaabiyo PES oo ah degmooyin gaar ah oo dalka Netherlands ka tirsan waxay isticmaalaan lacagta dollarka Mareykanka. Aruba waxay leedahay lacag u gaar ah oo la yiraahdo Aruban florin. Curaçao iyo Saint Martin waxay isticmaalaan lacagta la yiraahdo Antillin. haddaba waa maxay taariikhda ku gadaaman jasiiradaha boqortooyada hoostaga ee mid ka mid ah ka qayb gashay koobka adduunka ee haatan socda? taariikhda boqortooyada Netherlands waa mid ka soo bilaabatay dagaal xorriyad doon ah kadibna waxay isu bedeshay quwad ganacsi oo caalami ah ayadoona ugu dambeyntii isku rogtay boqortooyo dimuqraadi ah oo ku baahsan 2 qaaradood. bilowgii qarnigii 16aad dhulka maanta loo yaqaano Netherlands ama Holland ee Yurub dhaca wuxuu hoos tagayay boqortooyadii Isbaanishka. haddaba dadka deegaanka oo ka xumaaday canshuur badan iyo caburin diimeed ayaa sameeyay kacdoon uu hogaamiyay William of Orange wuxuuna ahaa dagaal socday muddo 80 sano ah oo ay ugu dambeyn Holland ku xorowday. xorriyadda kadib Holland waxay gashay waqti loo yaqaan xilligii dahabiga
ayadoona markaasi dhistay dhaqaale iyo maraakiibtii xilligaasi ugu casrisaneyd. shirkadihii Dutchka ee Dutch East India iyo Dutch West India ayaa noqdeen kuwa ugu awoodda badnaa caalamka, ayagoona qabsaday dhulal fogfog oo laga xusi karo Indonesia, qaybo ka mid ah Koonfur Afrika iyo jasiiradaha Caribbean-ka. qarnigii 17aad Dutchka oo dagaal kula jiray Isbaanishka ayaa qabsaday qaar ka mid ah jasiiradaha Caribbean-ka. shirkadii weyneed ee Dutch West Indiana Curaçao ayay ka dhigatay xarun weyn oo laga kontaroolo ganacsiga addoomaha. jasiiradaha waqooyiga sida St. Martin waxaa loo isticmaali jiray soo saarista milixda ama cusbada. boqolaal kun oo addoomo Afrikaan ah ayaana la keenay jasiiradahan si ay uga shaqeeyaan beeraha iyo dekedaha. haddaba sanadkii 1863 boqortooyada waxay si sharci ah u joojisay addoonsiga. sanadkii 1954 waxaa la dhisay nidaamka Netherlands Antilles oo jasiiradahan oo idil ka dhigay hal ismaamul oo hoostaga boqortooyada. laakiin 1986 Aruba ayaa ka go'day maamulkii jasiiradaha kale, waxayna noqotay dal gaar u taagan oo si toos ah ula macaamila boqortooyada. ugu dambeynna 2010 ayuu si rasmi ah u burburay nidaamkii mideynayay jasiiradaha kale ee lagu magacaabayay Netherlands Antilles. Curaçao iyo St. Martin waxay xubin toos ah ka noqdeen boqortooyada sida Aruba, halka saddexda jasiiradood ee ugu yaryar ee Bonaire, Saba iyo Saint Eustatius ay go'aansadeen inay noqdaan degmooyin gaar ah oo ka tirsan dalka Netherlands ee Yurub dhaca. haddaba mar haddii aan isla fahanay dhammaan dalalka boqortooyada, aan si gaar ah u dul istaagno dalka hadalhaynta ka dhex abuuray Soomaalida ee Curaçao. wuxuu dhigay rikoor cusub kadib markii uu noqday dalka ugu yar ee koobka adduunka ka qayb gala, asigoona rikoorkaasi kala wareegay dalka Iceland oo 2018 dunida taariikh cusub u qoray. ka hor qarnigii 15aad jasiiradda Curaçao waxaa deganaa dadka reer Kiketiyo oo asal ahaan ka yimid Venezuela, waxayna ahaayeen dad dabiicad ahaan degan oo beeraley iyo kalluumaysato isugu jira. inta badan maanta dadka ku nool Curaçao ama qiyaastii 80% waa dad madow ah oo asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika, kuwaasoo awoowayaashood jasiiraddan la keenay xilligii laga ganacsan jiray addoomaha. waxaa sidoo kale ku nool dadyow kala duwan sida Dutch, Hindi, Carab iyo Shiineys. waxaa sidoo kale xusid mudan in ay jasiiraddan ku nool yihiin Yuhuud gaaraysa ilaa 100. waxaana qarnigii 18aad Curaçao ku nooleed Yuhuudda ugu badan marka la eego gobolka, waxayna Yuhuudda jasiiraddan ku nool si weyn u weyneeyaan goob ay ku cibaadaystaan oo ay ka buuxiyeen ciid aad u badan oo cad. magaca jasiiraddan ee ah Curaçao waxaa loola jeedaa ama macno ahaan uu yahay wadne, maadaama jasiiraddan ay mar ahayd xarun ganacsi oo wadnaha badda Caribbean-ka, balse maanta ma lahan muhiimaddaas. caasimadda dalkan waxaa lagu magacaabaa Westminster, waa magaalada ugu weyn uguna muhiimsan jasiiradda, waxaana ku nool ku dhowaad 90% oo dadka dalkan ah. waa magaalo ku caan ah dhismayaal leh nashqadda ama guryihii hore ee gumaystigii Dutchka, waxaana magaaladan dhex mara marinbiyood u qaybiya 2 xaafadood oo taariikhi ah. waxaana sanadkii 1997 magaaladan loo aqoonsaday dhaxal caalami ah, ayadoona lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO. magaaladan labadeeda daan waxaa isku xirta buundo ama bridge sabeeya oo loo yaqaan Queen Emma. waa bridge aan tiirar ku taagnayn oo u furma sidii albaab weyn. markii uu markab galayo dekedda, buundada oo dhan ayaa dhinac u wareegta iyadoo adeegsanaysa matooro xooggan. inta badan dadka ku nool jasiiraddan waxay isku fahmaan luuqadda Papiamento, waana luuqad isku dhaf ah oo ka dhalatay isku darka luuqadaha af Portugiiska, af Isbaanishka iyo af Dutchka. waxaana sidoo kale laga helaa erayo ka yimid afafka Afrika iyo luuqadda Ingiriiska. tirada dadka ku nool Curaçao waa qiyaastii 158,000 oo qof oo kaliya. sidaas oo ay tahayna wuxuu ku guuleystay inuu ka qayb galo koobka adduunka oo ay ku guuldareysteen Hindiya iyo Shiinaha oo marka tirada dadkooda la isku daro ah 2.8 bilyan oo qof. heesta astaanta qaran ee Curaçao ee laga shiday koobka adduunka, dad badan oo Soomaali ah ayay ka yaabisay, maadaama ay aad u shabahdo heesta caanka ah ee Soomaaliya ee Tooso. inkastoo Soomaaliya ee Tooso aysan ahayn heesta astaanta qaranka ee Soomaaliya, oo heesta qoloba calankeed ayaa ah astaanta rasmiga. heesta astaanta qaranka ee Curaçao 26 Luulyo 1978 ayay si rasmi ah u noqotay heesta astaanta u ah dalka. erayadeeda ugu xoogganna waxaa ka mid ah aan kor u qaadno codkeena oo aan u heesno weynida Curaçao. Curaçao waa dalkayagii la jeclaa oo jawharada ah. aan kor u qaadno codkeena oo aan u heesno
midnimo nabad iyo jacayl